Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta aynu jecelnahay oo kusoo dhawaada janalkeena ka xuruuf akhriga hadduu eebbaweyne idma maanta waxaan idin wadaa qiso kaloo qurux badan insha allah ilaahay ha inaga yeelo kuwii wax ka faa'iido ku dhaqma. Waxaa jirtay hal hees carbeed oo la yiraahda timir baad ii keentay laakiin lafihii kamaadan saarin. Haddaba su'aal qof walba isweydiinaya ayaa waxay tahay halkee bay ka timid talow weydhani. Sidaan wada ognahay Abuubakar Sadiiq wuxuu ahaa nin sadaqada aan lagu gaadhin, wuxuuna qarsan jiray sadaqooyinkiisa, Ilaahay dartiis ayuuna sadaqadiisa ahayd, marka in ay cid bini'aadam ahi ogaato ayuu iska ilaalin jiray. Cumar bin Khadaab Allaha ka raali noqdee ayaa maalin maalmaha ka mid ah arkay Abuubakar oo guri Madiino cidhifkeeda ku yaala sii galaya aroor hore markii salaada fajarka laga soo baxo. Markaasuu haddana maalmo kale ku arkay isagoo sii galaya, Cumarna wuxuu jeclaa inuu Abuubakar la tartamo oo khayrka kaga daydo. Markaasuu galay saacado ayuu ku jiray, kadibna wuxuu ka soo baxay oo reerkiisa ayuu isaga tagaa. Muddo kadib ayaa Cumar bin Khadaab doonay inuu ogaado waxa uu Abuubakar guriga ka doono. Markaasuu maalin galay markuu Abuubakar ka tegay. Wuxuu ugu tegay islaan gabowday keli ah oo indho la' aanan dhaqdhaqaaqi karin gurigii. Markaasuu weydiiyey ninkii maalin kasta kuu yimaada Abuubakar al-Sadiiq ahaaye miyaad garanaysaa oo muxuu kuu qabtaa? Waxay ugu jawaabtay islaantii waayeesha ahayd oo joogtay guriga. Wallaahi hooyoy ma garanayo ninka, laakiin maalin kasta xilligaasuu ii yimaadaa, guriga iga xaadhaa, ii nadiifiyaa, cunto ayuu ii sameeyaa, iina keenaa, markaasuu baxaa isagoo ila hadlin. Abuubakar markuu dhintay, Cumar ayaa howshii halkii ka sii waday. Maalintii ugu horeysay oo Cumar u yimid islaantii guriga u nadiifiyay waxay cuntana siiyey ayay su'aal Cumar weydiisay. Markaasay hooyadii waxay dhahday, hooyo nin ii imaan jiray miyuu dhintay? Cumar wuxuu la yaabay su'aashii markaasuu ku yidhi maxaad ogaatay hooyo? Waxay ku tiri timir baad ii keentay laakiin lafihii kamaadan saarin. Cumar Allaha ka raali noqdee aad ayuu u murugooday, intay indhihiisa ilmo ka buuxsameen ayuu yidhi weedhiisii macruufka ahayd. Waynu daalnay dabadaa Abuubakarow. Ma Abuubakar ayaanu u oynaa mise Cumar ayaynu u oynaa mise xaalkeena maanta ayaana ka oynaa? Dadkeennii baahnaa ilownay intaynu lahayn naftaydiyey. Rabbi ha inaga yeelo kuwii is ogaada, kuwa baahanna ogaada. Insha Allah intaas waxaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii qisaska ahaa. Intaa mid laceen qisas laceedna ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano Allah. Hanaga hilmaamin share to comment-iga subscribe-ka waxay noo tahay dhiirigelin.